gobollada tan bari nugaal iyo mudug annagoo sool iyo sanad afkooda oo ku hadlayna saddex masalo midunaynu noqono saddex masalo midunaynu noqono yani waxba soo dhuundhuumani meel la wada leeyahay harti leeyahay oo daarood leeyahay soomaali leedahay oo aynu taladeeda ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo wasiir iyo khayraadkeeda aynuu gudboonahay meel aynu ku kala tagno si cad soomaalidu inaynagu ogaato aynu ku kala tagno oo layna ogaado inaynu kala guurro gobollada iyo deegaanada iyada idna nooga baxdaan anana aynu ka soo guurro aynu halka aynu kusku macasalaamin ama aanu somalilan aadno ama aanu maamulka samaysano ama aanu sideeda ku jirne inaynu kala guurro inaynu isku dullo garowe ilaa magaalo madaxaynu wada samaysano wada dhisano dhaqaalaheeda iyo adduunkeeda iyo wax kastoo galay waynaga dhexeeyaa meelay yimidugu isimada iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer puntland oo majeerteen iyo saasaan ku sugaynaa waxaa raacda dhulbaanta waxa uu matala madaxweyne axmed ciidni cismaan axmed karaash baa matala meel kastaba ha joogo madaxweyne guudna waa madaxweyne gaar ku-xigeenna wuuya laakiin beesha awood qaybsiga siciid harti ayuu ku fadhiyaa haddii sidii dhooba daarad xoog loola yimaado ku kala maqnaan mayno wixii dhinta iyo wixii dhaawacma iyo wixii wax gaaraan sidii walaalkan warsangare ka yeeli mayno oo walla ah inaanan ka yeelin garowe waynu wada naallaa guryaheena iyo xoolaheena kuwa yaal bixin shishadaynu ka marraa sokadaad ka soo martaan waynu wada degannahay waxaanu ku baaqaynaa oo leenahay oo ku celcelinaynaa war walaalayaal isku keendirinee oo yayna isdilin oo yaan cadow nagu wiirsan oo yaynan kala dhiman oo yaan wixii hore aadna badeen oo gobolka sool aad badeen iyo sanaag mar labaad wax kaloo aadna badeen yeeli jiri badida markaan ka hadlay waxa gacangelintii aad u gacangeliseen maamulka somalilan gobolka sool aad u gacangeliseen maalin meel waa guurtay waad ogne sidaa ku hari mayno kuna dhiman mayno haddayayna dilin waxaanu ku baaqaynaa war waxaa la yidhi hadhuub dhiman iyo hadhuub buuxa haddii laisku dhufto horta keebaa qubta hadhuubka buuxaa qubta war garow iyo lascaanood baa weynay oo lascaanood baa qurux badnay oo lascaanood baa ballanay maantana waad aragtaan garowe inay la mata london ciise maxamed waxaa lagu baaqaya islaan ciise war garow ayaan ninaan ka tegayaa beri yuu talin beri markuu ku dhibaato dhex dhiga yuu talin hadduu ka tegayo taladeeda waa wadaagnaa dhaqaalaheeda waa wadaagnaa dhaqankeeda waa wadaagnaa dhiiggeeda waa wadaagnaa isku dhiig baynu nahay axmed cilmiyuu muuqan deri den hadduu madaxweyne ka yahay meesha waa ka madaxweyne ku-xigeen wuxuu ka galaanu ka gallaa hadduu nakaafiyo waayo annaga inoo taallaa iyo baarlamaanka meesha noogu jira markaasana waa iyo kor isugu gudba laakiin hadduu nakaafiyo ka nakaafiya mana eryi kartaan loomana codayn karo baarlamaan lacag la siiyaa nama khuseeyo halkaasaanu ka eegaynaa maantana waad ogtihin wax walba waxay naga dhexeeyey hore noo dhexeeyey waad ogtihin yaa wixii wax inoo raacay puntlandna wada leeyahay iyo puntlandna ku kala tagno dalka iska day dalka waynu wadaagnaa idinma waa iman kartaan kan haddaa kan bixisan kiinuma bixisan laakiin ama waynu wada yeelayna waa ku kala tegaynaa xaqiiqdu saa weeye axmedna hadduu xiyo hadduu seebar beeshir annaga dooranay oo idinkaa naga doortay madaxweyne ku-xigeen booskii madaxweyne ku-xigeen buu noo fadhiyaa wuu noo joogaa wasiir aanu ansixin oo dhulbaantii mama qaadananaba wasiir dhulbaanto aanu ansixin isagu ilasaa meesha noo mama qaadanano oo maxaanu qaadanayna tani wasiirada ha magacaabo majarteen bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaahi raxmaani raxiim waa nabaadina xilkayga adoo tic raacaya ragga diinta hoyga u ah iyo hadalmay bahanta ah adoo masalada tic raacaya lorta nabaadina xilka dhiganaya halka waxaanu ku shiraynaa asxaabtadda ku qabanaynaa beelweynta dhibahante waxaanu ka hadlaynaa arrimaha puntland ka taagan maanta baanu ka hadlaynaa sidaa asxaabigeena ka sheekeeyey puntland waa hal aynu wada lahayn hashaa waynu qalannay hilbaheedaynu qaybsannay miserfere kuriskii baad qaadateen anna garba'aan qaatay
hartiga kalena inta kale u qaybsada kuriskiina weli hartiga kale oo idinku haysta ma aydan arag hartiga kale baa waxaad ku haysataan hilbahoodii caqligaasi horta caqli saliim ah maaha maalin walba cabdilaahi yuusuf dabadii wiil yar baad noo keenayseen waxaa ugu dacweynaa caddana wuxuu sameeyey waa noogeen intaa waxaanu ugu dulqaadanaynay cadkayagii garba aha aan lahayn baad kuriskiina doonaysa inaad ku darsataan maanta waanu diidnay waxaanuna halka u nimi maanta oo saxaafadda u qabanaynaa 48 saacadood baanu dani u qabanaynaa miteerteerka kale annagu eedu ma haysano laakiin isimada iyo waxgaradka iyo oqaashoodu wiilasha yaryar ee maalin walba ay noo keenaan ee yidhaahdaan madaxweyne ka dhiga oo sharciga ku tumanaya oo wuxuu doona ku samaynaya beelihii daawada puntland dhistay baad ka qaban weydeen saasaad isimada iyo oqaasha iyo waxgaradka ee miteerteennadii kiis ku leeyahay laakiin annagu madaxin dadweynaha waxaanu idiin sheegaynaa haddaanu bahantannahay annagu waxba kuma lihin hadallada sharafteedu waxay ku jirtaa xabadda masakiyo dawiish nagala tegay sheema iyo laan shanqashiga colaadda baa waqay sharaf ka dheefaa intaan shaal hagoogtaan raashiiska ii bilan xilaahay wuxuu ku dalaaqan yahay labaa qabaaladayda waxay uga dalaaqan yahay 48 saacadood baanu u qabanaynaa demi maslaxaad maanta uma jeedno kana wada hadli mayno maalin walba waxaynu ku wada hadlayna tagada annagu aanu leenahay war dastuur baa inaga dhexeeya kaayada madaxweyne ku-xigeenka dastuurka qodobadiisuu leeyahay isna qodobadiisuu leeyahay ma waxaa caqliga kaagana agtaa saaraya kaygana waa isticmaalayaa ma suuroobayso 48 saacadood ismada waa maqashiinaynaa miteerteen oqaasha waa maqashiinaynaa waxgaradka waa maqashiinaynaa mutacalimiinta waanu maqashiinaynaa haddaan dani xilka kaga teginaysa casilin garawa waxaan dhiigu sida daadka u rogmana ma jirtee wadahadal maanta aynu gelayno maslaxada aynu kala yeelanayno waayo annagoo dhibaato daraawiishayda xoreyno idinka laftigiina baad waxaad doontaan nagula kacdeen waa miteerteenow qabsada wiilka yarkaa kuwa yaree soo dhaadhamada yareen kamaanu yeelin war kan qabsada maanta xilkale ka dejiya ninaynu u dhinahayoo reer puntland oo aynu ku aamino tagada baa la geynayaa hadalka intaasaan kaga baxay waa bilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu 20 sano waa baryanay baryadaba ma hadhin 20 sano waanu baryanay waxaanu lahayn war waxa qoloo waxbay leedahay inoo daaye reerahaasi waa diideen reer hibeelo hartiga ka midi marka waxa weeyaan haddii ninku aad waaniso oo diido jawaabta uu leeyahay baa la siiyaa axmed garaash waa nin biyihii reer binu quraysheeda waa nin biyihii reer binu haashina waa nin biyihii caqiil binu daaliba waa nin biyihii jabartiya waa nin siidalkii daarooda waa nin siidalkii hartiya waa nin siciid hartiya waa nin shishoore habarwaaya weeyaan meel dambe horta nin fadhiya maaha waxa weeyaan ninowna ha isku dayin cadka siciid harti leeyahay inaad cunto haddaba ninaad ka cuni kartaana idin lama joogo axmed garaash madaxweyne ku-xigeen baa lagu sheegayaa 120 madaxweyne wey oo 120 madaxweyne wey ninayhu joogi weyde oo joogsan weyde wuxuu yidhi ninkii gooyaal baa la qaatay haddaan qayl la kala goosan gaydhaa la maalay haddaan geelo la horseexan gaadiid cadhoolaha haddaan caynka lagu gejin aabbahay gabay noqoy haddaan nabadi guuyo ilaahay nabarka waxaan ku gar axmed garaash ninuu yahay inuu muuqdaa intaa waanu xishoon anagu reer dagaal baaba nala yidhaahdaa reer dagaal taagan baaba nala yidhaahdaa nabadda ma rabno
nabadda dooni mayno xaaladda maanta taagan axmed garaas lagu hayana kuwa ka miciis qaadanaya maahin kuwa dhabarka lagu sidana allah ka dhigay caloosha kuwa ku jira waa ogyihin xaaladda axmed garaas lagu hayo mana ka duudsi qaadanano buntland waa burburtay dastuurkeedii waa la bedelay dad baa ku tuntay wax qaybteedii waa laysku xaqiray waa laysu aqoonsan waayey iyada intaasaan kaga baxay waxaan daba joogaa 3 eray oo ay buntland ku dhisan tahay oo aan leeyahay ilaa aan la soo noqdo inaanan wax qayb dambe aanan ka gelin lambar 1 nugaal waxa la yidhaahdo nugaal marka aan ku heshiino nin waliba inta uu ka leeyahay baynu wax ku wada qaybsanaynaa anagu dastuur dambe wax ku qaybsan mayno waa lambar 1 magaca darwiishna waa raba oo ma leh lagama leh darwiish anaa leh dib dambena uguma abtirsan karo nin ka soo jeeda beesha ma jeerteen darwiish anaa leh 3 midda kale waa xadka weye halka uu deni ku raaxaysto oo axmed garaash leeyahay ka waxayn kufurtu billaahi waa laysugu tegaya amar baana laysugu tegaya waana xadka dhulbaante nin walowbana ogow waa laysugu tegaya waxna lagu qaybsan maayo ilaa daartaa laysugu tago wax dambe oo la qaybsanaya ma jirto go-aanna waxaan ku ridaynaa oo aanu isku raacsannahay 100 wiil baa ku filan garow way faacertay waa dherigtay waxay noqotay meel lagu raaxaysto 100 wiila gaajaysan baa adeerto caleego haddaad moodeen inaanu wax weynu soo dirayno 100 baa ku filan 100 aanu xuway oo aanu go-aankeeda ku jiro oo aanaan naftooda iyo maalkoodaba rabin oo aanu taariikh kala baxno darwiish magaca kula soo noqono sooliga sanaag iyo cayninka yidhina sooliga sanaag iyo caynna dib dambe maca federaal uga dulqaadan mayno inay noqdaan meel lagu gorgortamo aan dastuurka ku jirin hadalladan odhan lahayo raggii horaa yidhi axmed garaash waa madaxweyne dhulbahante ma aha ku xigeen annagu madaxweyne loo yahay madaxweyne ma ridi karo qabiilo kuma soo xadgudbi karto xadka aad leedihiin soo dhaafinina inkastoo dadkaas ee dumarka kala gudbaya ay idinku jiraan waxaan leeyahay ninkii la odhan jiray maxamuud cali shire hadalkiisii baa muuqda markaan in yar ka gaadho waxaa u yimi garaadka dhulbaante iyo boqorka ma jeerteen garaadkii dhulbaantuu salaamay war maxay ku dhacday buu yidhi wuxuu nina hooyaa ii keentay nina aabbaa ii keenay anigu nin baqaya mehi ilaahay baan ka baqayaa garowana waa imanayaa ballanna waxaan ku qaadayaa haddaan qaladka lee kala joojin oo dadku isticgelin oo ninba ninka uu nin waliba shaqadiisa uusan garan ballan waxaan ku qaadaa garowe waa inay garowe dhismaan baan ballan ku qaadayaa haddaan raggii rabbi ka waayin war hooy markii horena dowladdii hore idinkaa mucaaradkooda ugu horreeyey kanna idinkaa mucaaraday mucaaradkiina aad dadka aad dowladaha mucaaradaysaan oo madaxweyneyaasha aad mucaaradaysaan annagu waa ka yaabanahay marka horeyse deni wuxuu yidhi somalilan puntland federaalku puntland buuhoodle iyo cayn iyo badhan somalilan baa laga fidiyey oo loo gacan dhafay annaguna waxaan u naqaan ay puntland ama meel daarood ama meel harti uu harti ka taliyo madaxweynayaasha marba madaxweynaha soo qabanayay weli madaxweyne ku hadla yidhaahda somalilan baa ka talisa buuhoodle iyo cayn maanta ka horta waa maqan iyo baran waxa weeye dagaal baaba ka dhacay deni waa maqnaa waa maya de isagu waxa weeye meel buu ku maqnaa dee inuu dhakhtar ku jiray ma garanayo markii lagu dagaalamay malaayiinka qof ku dhimatay oo 2 sano oo dhowdhow lagu dagaalamayay dee waxaa maya deni ma joogin
inuu hurdo dhakhtar ku maraaban maayo taasi waa taa marka baaqyadii hore uun buu daba joogaa baaq waxaan u diraynaa ma jeerteen haddaad kula socotaanna maxamed hartiyow haddaad kula socotaan danina waa mahadsantihiin wuxuu yidhi haddii saa la yeelana waa alxamdulilah haddii la waayana waa rabbilcaalamiin haddii aadi kula soconna sidii uu garaadku markii dhaweyd sheegay 48 saac jawaabtiinna aanu hello taasi waa tama jeerteen dalkan ka hadlaya meesha daaruhu ku yaalliin sarahan dhaadheer ee mukayfku ku xidhan yahay iyo dhalooyinku waa meeshu ina cabdulla xasan lahaa dhulbahanta ku dhammaadoo lahaa dooxadii garoowe wixii nalagu dooxaayey waxay duub caddaydii wadhnayd bixin duleedkeeda may waxa yaala lafahayagii halka daaruhu ka dhisan yihiin haddii xabadii dhacdana dhulbahantaana leh taasu waa taa waxa timi ta dawladda haddii nidaam la waayo iyo sharci wax wada dhisashada soomaaliya oo dhan baa og inaynu wax wada dhisannay innagoo su istira axmed garaash waa madaxweyne dhulbahante annaga isagaa madaxweyne nooca ninkuu doona isagaa bedelaya ninkuu doonana isagaa keenaya dani madaxweyne annaga doonooma ahee waxbaan isku darsanna haddii sharci la waayo annaga oo dhulbahanta isagoo keligiisu harti geela ka dhaca oo riyo uga tegi wallaahi waxaanan uga tegayn daara aanan ka dhigan gawaan waxa la yidhi bakaylow haddaan kuudud kugu xumay aniga kadaloobiguma xuma annaga waxaanu dhowranaaba ma jirto haddii aydin nabadgelyada dan idinku jirin iyo wada dhalashada iyo tulliimada iyo wax wadaaggu dee annina dani nooguma jirto